wax ka baro taariikhda ciidanka xoogga dalka. Ciidanka dhulka Soomaaliyeed waxay u kala baxaan booliis, military, asluub, NISA. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 20 Diseembar 1943. Taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu ahaa Genaraal Maxamed Abshir Muuse. Waxa uu ku dhashay magaalada Haradheere ee gobolka Mudug sanadii 1926, wuxuuna ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku soo biiray isagoo dhalinyaro ah. Howlaha ciidanka booliisku uu qabto waxaa ka mid ah ilaalinta anshaxa bulshada, ilaalinta amniga gudaha iyo wixii la mid ah. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee militariga waxaa la aasaasay isagana 12 Abriil 1960. Taliyihii ugu horeeyay ciidanka xoogga dalka ee militariga waxa uu ahaa Sareeye Guud Daawud Cabdullaahi Xirsi Faynuus. Sanadii 1924 ayuu qoys diinta u saaxiib ah uga dhashay deegaanka Mareeg ee degmada Eeldheere ee gobolka Galgaduud. Howlaha ciidanka xoogga militariga waxaa ka mid ah ilaalinta xuduudaha dalka. Sidoo kale waxay la diriraan xubnaha kooxda ee dawladda ee argagixisada iyo wixii la mid ah. Ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 1960 kadib markii Soomaaliya ay qaadatay xorriyadda si loo maareeyo xabsiyada iyo maxaabiista dalka. Ugu dambeyntii, ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. Ciidamada NISA waxaa la aasaasay sanadkii 2013 xilligii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dib u dhis ku samaysay hay'adaha qaranka. Horey waxaa u jiray hay'ad la oran jiray NSS oo loo soo gaabshay National Security Services xilligii dowladdii dhexe laga soo bilaabay 1969 oo laga soo gaaray 1991, balse burburkii ka bacdi waa ay joogsatay. Ugu dambeyntii halkaas ayaan ku macsalaamaynayaa. Waa aniga Shaakir Fiile.